madaxweyne adiga iyo garaad jaamac garaad cali ila isku meel u socotaan ee u maleynaya labadiina qadiyadii dhulbahantaa maanta sare isu taagtay dhulbahante ilaa 1992 ilaa 1997 isaaq u daba socda isaaq maalin looma tegin isagu intaa waaraynu wax wada yeelanuu lahaa waaraynu wax wada yeelan isaaq wuu ka sii jeeday isaaq wuu ka sii jeeday dhulbahanta garaad cabdiqani 1997 halkaa halgeysa barteeda markuu istaagay maalintaa ilaahow waadigay markhaati baad ka ahay ee ulaha war isaaqow in cigaal laga qabta war haddii kale meel dheer baa laga dooni doonaa ee isaaq kuwii u waaweynaa xaaji cabdiwaraabe iyo sheekh ibraahim iyo laha ay ku yidhaaheen kaa qaban kari mayno waa loo soo wada taagna ee wili haddaba hadhow yeelaan iseersan markii halkaa kalaqagatiyo puntland wax ka dhisay qadiyadda dhulbaantay ilaa haada alyowm saasay u taagnayd waxaa u dameeyey oo dadkii la yaryaray aa wada garanaysaan cali khaliif iyo heshiiskii siiraaye ay wada galeen intuu cali khaliif qaylinayeen waa maqlaysay ee uu goob walba ka hadlayay ee uu lahaa war waxaan doonayna somalilan la wada leeyahay waar somalilan aanu marti ka nahay ma doonayno heshiiskii labaatanka qodobaha ee uu siiraaye la saxeexay cali khaliif oo madaxweyne khaatumaha halkuu ku dambeeyey yaa ka warrami karaya yaa eedda leh marulbahantaa leh mise waxaa le dowladda somalilan adar gari allay taqaanaa raaxamarku waxay dhahdaan gaal dil gartiisa la sii eedda iyo khaladka iyo qallooca intaba waxaa leh dowladda somalilan ee muuse biix cabdi madaxweyne kayii hogaamiye heshiiskaa uu siiraaye galay wuxuu ka mid ahaa xil wareejintii muuse lagu wareejiyey waxaa idinu fuliyo ila madaxweyne ka horreeyaa saxeexae oo heshiiska galae waajib bay ku ahayd inuu fuliyo muuse buu fulla darooga ku tuuray darooga ayuu dhigay wuxuu maanta uga daba qaylinayaa dhulbahanta xuma qarannimadu maanta u sheegaya waa maxay soomaalinimadu maanta dhulbahanta u sheegaya waa maxay sokiisa u dhulka ku tuuray ee darooga dhigay adeer halgari allay taqaanaa dhulbahante maanta way isu wada yimaadeen way shirayaan waxaa leeyahay madaxweyne ka dulqaad horta ciidamadana dul dhigtay sababtuna waa wax fudud horaa loo yidhi muslim kuma caabuudsamo walloon madaxa kaa goyni muggii weelma dhaafoon allow booskaya jiba dhulbahanta dagaalkii uu isaaq galay ee uu dowladdiisaad barre la galay ka liidan maayo adeer haddaad haystiinu ka liidanayo tu kalle waan kuu sheegayaa dagaalaad dhulbahanta ku qaada maanta isaaq isku raaci maayo taalaniyadda geli isaaq inuu isku raaco dagaalaad dhulbahanta ku qaada maanta ha u fadhiin isku raaci maayo wuu ku qaybsami doonaa isaaq waxaanay noqon doontaa dhammaadkii somalilaanta waxaan u malaynaya laakiin markaan dhowr arrimood eegay madaxweyne adiga iyo garaad jaamac garaad cali ilaa isku meel u socotaan ayaan u malaynaya labadiina waxaan jeclaa inaa iswaraysataan waayo waaban arkaa isku meel baa u socotaane adiga madaxweyneha muusaa iyo garaad jaamac garaad cali waxaan u malaynaya isku meel u socotaane bal hoos isu waraysta shir bay ku baaqeen way shirayaan
qurba joog iyo guda joogba ha isugu yimaadaan